وأقدر ودي لو ردك دقوها تنصور دعينا وحا وموجنا يا إن كود الريال مدريد يصير رسمية وصوبا نكتعياريا كذا ويركا وقعيار الدونة كلا وليتا كود الجلسية إيدين هزاد سيدي لما تجير كان حولك قارن كبيلجيم ككابتن كوا أيه دوان ريال مدريد كلا وليتا كود الجلسية يضو بقولي كونتون مليون أو يورو العقاريسة مركي الاسكوع العليو أي كلا وليكتي وعياريا كيشانات كود الريال مدريد كلا وليكتي سوق حقاقا iyadoo ay markaasi ka horeeyeen Luka Jovic, Eder Milito iyo Rodrigo sidoo kale xalay ay Real Madrid la wareegtay ciyaaryahan Ferland Mendy haatan Real Madrid ayaa caawa si rasmi ah u soo bandhigtay oo taageerayaasha iyo warbaahinta ku tusisay garoonka Santiago Bernabeu ciyaaryahankeeda cusub ee Eden Hazard kaasoo waqti dheer Real ay ku naaloonaysay in uu ka ciyaaro garoonka Santiago iyo kooxda Real Madrid. Eden Hazard ayaa caafimaadka u maray kooxda Real Madrid isagoo oo markaa galabta maqribkii soo gaaray garoonka Santiago iyo isbitaalka caafimaadka ee kooxda waxa lagu sawiray isagoo oo markaa la taagan dhaqaatiirta caafimaadka ee kooxda Real Madrid sidoo kale garoonka Santiago oo ay soo xaadireen kumanaan dadweyne ah oo taageerayaasha kooxda warbaahinta ayuu la hadlay Eden Hazard waxa uu yiri aad baan ugu faraxsanahay inaan u saxiixo kooxda ugu wanaagsan dunida xaqiiqdii aad baan ula dhacsanahay waqti dheer ayaan ku riyoonayay inaan ka ciyaaro halkan Real Madrid. Eden Hazard ayaa la xiriirinayay Real Madrid ilaa iyo 10 sano ee ugu dambeeyay oo kooxda Real ay aad indhaha ugu haysay ciyaaryahankan tan iyo markii uu dheelayay kooxda Lille ee dalka Faransiiska. Eden Hazard ayaa waxa uu ku sugnaa garoonka Stamford Bridge ee kooxda Chelsea 7 sano ee ugu dambeeyay iyadoo 7 sano la leeyahay Real Madrid waa ay doondoonaysaa inay la wareegto mar uun ciyaaryahankan xulka qaranka Belgium ka u dhashay. macallimiin iyo khubaro kubadda cagta ayaa aad u amaanay xirfadda ciyaaryahankan iyagoo sheegaya in wax badan uu ku soo kordhin karo kooxda Real Madrid waxa kamid ah macallinka kooxda Manchester City oo Real Madrid ay u tahay cadawgiisa ugu weyn kubadda cagta waxa uu yiri Real haatan ay isha ka riday saxiixdii ugu wanaagsanaan ay kala wareegtay suuqa. Eden Hazard waa ciyaaryahan aad cajiib u ah oo aan ahaan waxa uu kamid yahay ciyaartooyda aan arkay kuwooda ugu wanaagsan waxaan aaminsanahay wax badan inuu ku soo kordhin karo kooxda Real Madrid ayuu yiri macallin Pep Guardiola. sidoo kale waxa ka hadlay khubaro iyo falanqayaal kubadda cagta oo aad u soo dhaweeyay in Real Madrid ay xidigan kala soo wareegtay suuqa. haddaba waxa su'aalo la iska weydiinayaa ciyaartooyda ugu fiican kubadda cagta ee ku soo baxa horyaalka Ingiriisku sababta ay Spain ugu dhamaadaan iyadoo horay xidigo muhiim ah oo ka soo baxay kubadda cagta Ingiriiska ay markaa dhanka Spain u wareegeen waxa kamid ahaa Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale Luis Suarez iyo kuwa kale waxa la leeyahay sababta halka ciyaartooyda ugu wanaagsan u aadayaan horyaalka Spain waa inay ku guuleystaan abaalmarinta ugu wanaagsan dunida kubadda cagta ee Ballon d'Or iyadoo ilaa haatan tirada ugu badan ee ku guuleysatay ay yihiin xidigo ka dheela horyaalka dalka Spain. Eden Hazard ayaa lambarka 7 u xiran doona kooxda Real Madrid iyadoo haatanba suuqyada lagu iibinayo funaanada Eden Hazard ee lambarka 7 markaasi lagu xardhay. Cristiano Ronaldo ayaa 9 sano uu joogay kooxda Real Madrid waxa uu xirnaa lambarka 7 waana lambar markaasi muhiimadiisa u leh kooxda waxay aaminsan yihiin taageerayaasha Real Madrid in Eden uu ka soo bixi karo shaqada looga baahan yahay garabka kooxda Real Madrid ee uu baneeyay Cristiano Ronaldo.